bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka kooban ee kooda duhurnimo oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe warbaahinta nation ee magaalada muqdisho, waxaana idin socodsiin doona anigoo cabdixaajiya. alla u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay marxuum abwaan bedel jaamac xirsi oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed, kaasoo xali lagu dilay degmada kaxda ee gobolka banaadir. marxuumka ayaa waxaa toogasho ku dilay rag ku hubaysanaa bistoolado, kuwaasoo goobta ka baxsaday xilli ay ku beegneed afurkii, gaar ahaan markaa laga soo baxay salaadii maqrib. gudoomiyaha maamulka degmada kaxda maxamed yuusuf oo ka qayb galay aaska ayaa ka hadlay dilka abwaanka, wuxuuna tacsi u diray ehlada iyo ummadda soomaaliyeed. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay ku raad joogaan raggii ka dambeeyey dilka loo geystay abwaan bedel jaamac, islamarkaana ay hayaan xogtooda ayna gacanta ku soo dhigi doonaan si loo horgeeyo maxkamadda looguna qaado tallaabo waafaqsan sharciga. laakiin waxaan caddaynaynaa abwaan bedel gacantii dishay haddii ilaahay raalli ka noqdo in lagu tegi doono ilaahay idankiis wakhti dhow. raadaan haynaa, xogaan haynaa, informationna haynaa, waana ku tegi doonaa. waxaan u sheegaynaa ciddii gacantaa geysatay inaysan naga dhuuman doonin, naga hoyan doonin, nagana harsan doonin haddii ilahay raalli ka noqdo insha allahu tacaala. godkay galaan aan ugu geli doonno, cid kasta ay noqoto ee meel kasta nala gashana aanaan ka hari doon ilahay idankiis haddii ilahay raado. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. waxaan leenahay abwaan bedel, abwaankii weynaa soomaaliyeed, ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. runtii waa geeri xanuun badan oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan wada saamaysay. guri kasta oo soomaali ah meel kastuu joogo waa guri laga dareema xalay geerida abwaan bedel. runtii waxaan leenahay ilaahay jannad firdowsaha ka waraabiyo. gacan ka xaq daran baa dishay xilli bil rabadlaana oo soomanaa oo saa'ima oo masaajid beydkii ilaahay uu ku jiray ayaa lagu dilay. waxaan leenahay naxariista janna allaha ka waraabiyo. runtii qofkii beydka ilaahay ka xishoon waayey oo beydka ilaahay qof sooman oo saa'ima ugu galay, aakhiri adduun midna xuma yaalaan. runtii waa geeri aad u xanuun badan, waana ka tacsiyeynaynaa ehelka iyo qaraabada ummadda soomaaliyed waan uga tacsiyeynaynaa. laakiin waxaan caddaynaynaa abwaan bedel gacantii dishay haddii ilaahay raalli ka noqdo in lagu tegi doono ilaahay idankiis wakhti dhow. raadaan haynaa, xogaan haynaa, informationna haynaa, waana ku tegi doonaa. waxaan u sheegaynaa ciddii gacantaa geysatay inaysan naga dhuuman doonin, naga hoyan doonin, nagana harsan doonin haddii ilahay raalli ka noqdo insha allahu tacaala. godkay galaan aan ugu geli doonno, cid kasta ay noqoto ee meel kasta nala gashana aanaan ka hari doon ilahay idankiis haddii ilahay raado. hadday aaminsan yihiin maalin kasta qofka bulshada soomaaliyeed macnaha u leh inay inta la dilo la iska seexdo, inaan la seexan doonina ballan qaadayna insha allah haddii ilahay yidhaahdo. goobo badan iyo guryo badanoo nabad lagu jiifana lagu jiifi doono haddii ilahay raalli ka noqdo insha allah. aad iyo aad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. allah u naxariistay bedel jaamac xirsi ayaa caan ka ahaa magaalada muqdisho, wuxuuna aad uga hadli jiray arrimaha siyaasadda iyo xaaladaha taagan, isagoo kasoo muuqan jiray warbaahinta. si kastaba dilkiisa ayaa qayb ka noqonaya falal ammaandariya oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya magaalada muqdisho xilli lagu jiro xaalad kala guur ah iyo marxalad doorasho. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa magaalada washington ee dalka maraykanka kaga qayb galay furitaanka shirka sanadlaha oo ay yeeshaan hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka. shirkan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada maaliyadda dalalka qaybta ka ah hay-adda lacagta adduunka iyo bankiga adduunka iyo xubno kale. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shirka ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha maaliyadda soomaaliya iyo halka ay marayso dadaalka loogu jiro deymaha in laga cafiyo soomaaliya. sidoo kale wasiir beyle ayaa inta uu shirkaa socday kulamo kala gaar ah la qaatay mas-uuliyiinta labada hay-adood, iyaga oo ka dooday barnaamijyada horumarinta dhaqaalaha soomaaliya. xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxay dadaal ugu jirtay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta, waxaana mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda ay dhowr jeer ka qayb galeen shirar looga hadlayay arrimaha deyn cafinta soomaaliya. maxkamadda sare ee dalka ayaa waxaa maanta ay bilowday dhegeysiga dacwadda ka dhanka guddiga doorashooyinka heer federaal ee hakiyey kursiga hoob 86 oo uu horey ugu guuleystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo ahna taliyihii hore hay-adda niisa fahad yaasiin xaaji daahir. goobta dhegeysiga maxkamadda ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed, waxaana goobta lagu dhageystay dacwad u dhexaysay qareenka fahad yaasiin iyo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka oo ka wakiil ahaa guddiga doorashooyinka.
intii ay socotay dhegeysiga dacwadda ayaa qareenka u doodayay Fahad Yaasiin oo lagu magacaabo Sakariya Ismaaciil wuxuu sheegay inaysan jirin awood ka sareysa maxkamadda sare isagoo maxkamadda u gudbiyo codsi ku aadan in la diido go'aanka guddiga doorashooyinka ay ku hakiyeen kursiga hoob 86. dhinaca kale xafiiska garyaqaanka guud ee dalka ayaa dhankiisa ku dooday in heshiiska doorashada ee 17 Sebteembar ee uu malmariyay baarlamaankii hore ee Soomaaliya inuu yahay sharci awood siinaya guddiga doorashada islamarkaana aysan jirin cid kaga sareysa go'aanada la xiriira. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ku dhawaaqay in fadhiga maanta ee dhegeysiga dacwadda Fahad Yaasiin uu xiran yahay islamarkaana uu go'aan ka soo bixi doono maxkamadda dhawaan. guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa 18 bishii Febraayo ee sanadkan ku dhawaaqay in la hakiyo qabashada doorashada kursiga hoob 86. hayeeshee guddiga doorashooyinka Hirshabelle oo ka dhig adeegay go'aankaas uu doorashada kursigaasi qabtay 20 bisha Febraayo islamarkaana uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dhameystirka doorashooyinka Soomaaliya. Aadan Madoobe ayaa shirka jaraa'id ku shaaciyay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xisbiga himilo qaran ee hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. sababta ayaa wuxuu ku sheegay inuu hoggaansamayo sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ee ku aadan qodobkiisa la xiriira in qofka isku sharxaya guddoonka baarlamaanka uu marka hore iska casilo haddii uu xilka ka hayo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. sidoo kale wuxuu tilmaamay in haddii uu ku guuleysto xilka gudoomiyaha golaha shacabka inuu markaasi u sinaan doono dhinacyada siyaasadda dalka kana shaqayn doono cadaaladda. shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan caddeeyo aan u caddeeyo ummadda Soomaaliyeed sidoo qabo qodobka dastuurka qaranka ee kumeel gaarka ah qodobkiisa 65aad farqadiisa 3aad oo nafarayso qof kasta u tartamayo guddoonka golaha shacbiga mas'uud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed inuu iska casilo xil kasta uu hayay xisbi siyaasadeed. sidaa daraadeed waxaan u caddeynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan iska casilay xilkii aan ka hayay xisbiga himilo qaran, taas oo aan fulinayo u hoggaansamayo siduu nafarayo dastuurkeeni. isla markaasna hadduu ilaahay igu makaniyo igu guuleeyo aan noqon doono oday Soomaaliyeed oo u saman dhammaan garabada siyaasadeed ee Soomaaliya, cadaalad iyo sanaan aan ku maamuli doono siyaasad xisbi u gaaran aan meesha la tagi doonin. intaasaan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadalka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta la bilaabay diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ee u taagan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadibna doorashada labada guddoon la qaban doono 26 iyo 27 bishan Abriil. guddiyada doorashooyinka guddoonka golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaasha labada aqal iyo ku-xigeenadooda. musharaxiinta ugu horeeya ee la diiwaangeliyay ayaa waxaa maanta ay noqdeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo tartamaya gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaan Maxamed Cumar Cali Caananuug oo tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. dhinaca kale guddiga doorashooyinka aqalka sare ayaa dhankooda iyana diiwaangeliyay musharaxiinta gudoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen oo ay u taagan yihiin musharaxiin fara badan. muddo 3 cisho ayay socon doontaa diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka labada aqal, waxaana ugu horeeya doorashada guddoonka aqalka sare oo la qabanayo 26 bishan, halka maalinta xigta ee 27 la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka. muddo 6 cisho ayay ku xirnaayeen xarunta dambaarista ee magaalada Hargeysa ku dhawaad 15 suxufi oo ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. wariyaashan ayaa xilliga la xirayay ku howlanaa tabinta shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe magaalada Hargeysa, waxaana maanta maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Somaliland ay sii deysay 12 ka mid ah wariyaashaasi. wariyaasha ayaa la sii daayay waxaana laga reebay oo markaasi weli xabsiga ku jira wariye Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen iyo wariye ka tirsan telefishinka Goonimo TV, iyadoo xukuumadda aysan faahfaahin sababta loo reebay. intii ay xirnaayeen wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxaa cambaareeyay madaxda xisbiyada mucaaradka Somaliland, ururada saxaafadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Somaliland.
wasiirada warfaafinta iyo arrimaha gudaha ayaa markii la xiray wariyaasha warbaahinta u sheegay in saxafi kasta ee lagu helay inuu dembi galay sharciga la marsiin doono, iyagoo wariyaasha ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo dhib keeni kara. qaar ka mid ah wariyaasha oo hadlay ayaa soo dhaweeyey in xorriyaddooda la siiyey, iyaga oo u mahadceliyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somalilan oo qaybin ku lahaa sii deyntooda. deegaanada Somalilan ayaa 4 sano ee soo dhaafay waxaa aad loogu dhibaateynayay wariyaasha, waxaana xukuumadda Somalilan ay xirtay wariyaal markaasi gudanayay waajibaadkooda shaqo oo uu ka mid yahay Cabdimaalig Muuse Coldoon oo u xiran maamulka Somalilan islamarkaana weli ku jira xabsiga magaalada Hargeysa. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo hadlay ayaa ku dhawaaqay xaalad qaran oo musiibo ah kadib fatahaado baahsan oo ku dhuftay gobolka Zulu, kuwaas oo galaaftay nolosha 443 ruux, kumanaan kalena ay ku gurye beeleen. Ramaphosa ayaa sheegay in sanduuqa wadajirka ee COVID-19 hore loogu qoondeeyey haatan loo isticmaali doono dadaalada gurmadka fatahaadaha, mana cadda ilaa iyo hadda inta lacag ee laga siin doono sanduuqan dadka dhibaatada ee ka soo gaartay fatahaadaha ku dhuftay dalka Koonfur Afrika. waa musiibada ugu xumeed ee soo marta taariikhda dalka Koonfur Afrika inta la xasuusto, waxaana aad ugu xumaaday qaar ka mid ah madaxda dalalka qaaradda Afrika. warkii koobnaa ee kooda duhurnimo uu soo saaray Cumar Saciid Cabdiraxmaan oo idin wareemaya anigu Cabdi Xaaji, waana intaas ciddu warka saxay waxay dib ka dalacan karaan bartaan internetka ku leenahay ee nationfm.so. nabadgelyo.